بسم الله ورقد referencegeedu tahay 101 kuna taariikhaysan 19 bisha 2023 ku dhamaan shirkadaha linerska og wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda og wasaaradda maaliyadda og wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed ujeedo fasaxid badeecadaha ganacsiga ku xaniban dekedda Muqdisho anagoo tixraacayno cawashada iyo shirkadaha muddooyinka dambe anagoo tixraacayno cawashada iyo shirarka muddooyinka dambe la yeelanay ganacsatada badeecadaha kala soo dekedda Muqdisho kana cawanayaan culeysyo muddooyinka dambe soo food saartay badeecadaha la xiriirta dekedda ka soo dega culeysyada ayaa waxa kamid ah in la soo rogay lacago lagu sheegay ACTN waxayna ka cawanayaan in qaar kamid ah shirkadaha linerska ee badeecadaha ku xaniban in ay ku xanibeen in lacagahaas oo wali la isku afgaran wadaxaajoodna laga galin in ay bixiyaan si ay badeecadooda u qaataan haddaba maamulka rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed waxay ka codsanaysaa shirkadaha linerska in ay fasaxaan badeecadaha ganacsatada ee ku xaniban si aysan caqabad ugu noqon howlaha dekedda iyo canshuuraha dalka ugu dambeyn waxaan rajaynaynaa in aad fulisaan codsiga ganacsatada waxna ka qabataan cabashadooda mahadsanidin waxaan ku siixan gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed mudane Maxamuud Cabdi Cali Gabeere